muuqaalkani wuxuu noqonayaa kii afraad ee nagula hadlana exponentialka. Waayahay inagoo weli kusii jirno exponential equations weliba. waaye hadday qaabka noqoto bal ka waran qaabkeen u xalinaa masaladan. waa cubic root of 3 to the power of x waa inoola mida 3 to the power of 2x plus 5. sidee baan usoo saaraa qiimaha x? waayahay haddaba xalku wuxuu noqonayaa intan waxay noola mid tahay ugu horreyn waxaynu bedelinaa qaybtan oo square root-ka waxaynu bedelinaa jibaar. marka waxay noqonaysaa 3 to the power of x xididkani micnihii tusaale ahaan square root of x sidaynu hore usoo tilmaanay wuxuu inoola mid yahay x to the power of 1/2. haddii cubic root ay noqotana cubic root of x hadday noqotana wax kale isma bedelayaan, bartaa tuugaya waxay noqonaysaa 3 dabeedna waxay noqonaysaa x to the power of 1/3. okay haddaba xididkani maadaama indhexkiisu 3 yahay, indhexka intana leedahay maadaama indhexkaasi 3 yahay waxaynu odhanaa 1/3 ayaa waxay noola mid tahay 3 to the power of 2x plus 5. halkan markaynu taaganahay waxaynu isku dhufanaa labada jibaar. waa qiimahaas x qiimahaasaynu ka hadlanaa iyo intaasaynu isku dhufanaa dabeedna waxay noqonaysaa intaasi aynu nidhaahnaa equal 3 to the power of x/3 ayaa waxay noola mid tahay 3 to the power of 2x plus 5. maadaama hooseeyaashu imika isku mid noqdeen qasab waxayna sareeyaashuna isku mid noqdeen. micni jibaaraduna waa isku mid, haddii baseku isku mid yahay jibaarkuna waa isku mid. marka waxay noqonaysaa x/3 ayaa waxay noola mid tahay 2x plus 5. haddaba halkaa markaynu taaganahay wixii xaraf wato waxaynu isku marinaa dhinac, wixii aan wadana dhinaca kale. walow xakan dhinaca midig uu yaalloon hal qiimo oo xaraf wata. marka qiimahaasaynu soo qaadanaa waxaynu ku darinaa qiimaha kale bidixda yaalla dabeedna qiimahani markuu soo wareegayo qiimahaasi markuu xaggan soo wareegayo wuxuu noqonayaa minus 2x ayaa waxay noola mid tahay 5. waayo haddaba intan aynu ka shaqeyno qaybtan bidixda xigta waa qaybtan aynu ka shaqeyno. waxay noqonaysaa markaa waa x loo qaybiyey 3 minus 2x. halkan hal baynu u qaybinaynaa dabeedna waxaynu raadinaa least common multiple-ka 3 iyo 1 waa 3 baynu u qaybinaynaa 3 waa hal micnihii labadan isku qaybinaa tan iyo waxaan isku qaybinaynaa iyo tan hal weeyaan. hadda saddex u qaybiso dabeedna halkii waxaan ku dhufanaynaa qiimaha sare ama xarafka u qaybsan 3 waxay noqonaysaa markaa x. mar kale waxaan isku dhufanaa 3 waxaan isku qaybinaa 3 iyo 1 waa 3 baynu ku dhufanaynaa 2x minus-tan waa soo qaadanaa 2x haddaa 3 ku dhufato waa 6x. okay labadan waad kala jaraysaa marka waxay noqonaysaa minus 5x loo qaybiyey 3. marka minus 5x loo qaybiyey 3 ayaynu ku bedelaynaa halkan intan oo dhan waxaynu ku bedelaynaa qiimaha aynu soo saarnay ee minus 5x/3. minus 5x/3 ayaa waxay noola mid tahay 5. waayo dabeedna 3gan hooseeya waxaynu ku dhufanaynaa 5kan xige dhinaca midig minus 5x marka waxay noola mid noqonaysaa minus 5x ayaa waxay noola mid noqonaysaa 15. waayahay dhinacan waxaynu u qaybinaynaa xarafka uu wato qiimaha uu xarafku wato oo ah minus 5 dhinacana waxay u qaybinaynaa minus 5 dabeedna labadan minus 5 way isla baxayaan. x marka waxay noola mid tahay 15 haddaad 5 u qaybiso waa minus 3
marka qiimaha x waxa weeyaan minus 3. Okay, qiimahaas inuu sax yahay haddaba si aynu u ogaano waa inaynu ku bedelno equation-teenii hore ee caadiga ahayd. waayo qiimahaynu haysano wuxuu ahaa x waxay noola mid tahay minus 3. equation-teenuna waxay ahayd cubic root of x to the power aan idhahda 3 to the power of x 3 to the power of x ayaa waxay kula mid tahay 3 to the power of 2x plus 5. waayo aynu ku bedelo haddaba meel kasta ay x taala aynu ku bedelo qiimaha aynu soo saarnay minus 3. waayo qaybta bidixdan ku horeynaynaa waxay noola mid noqonaysaa markaa cubic root of 3 to the power of minus 3 waxay noola mid tahay 3 to the power of 2 times minus 3 plus 5. waayo halkani marka waxay noo noqonaysaa rogaalkeeda minus aan idhahda 3 to the power of minus 3 intan rogaalkeedu waxa weeyaan waa hal loo qaybiyey 3 lagu jibaaray 3 dabeedna 3 lagu jibaaray hal loo qaybiyey 3 lagu jibaaray 3 ayaynu ku bedelanaa halkay noo taalo 3 to the power of minus 3. waayahay markaynu ku bedela markaa hal loo qaybiyey 3 lagu jibaaray 3 waxay noqonaysaa cubic root of hal loo qaybiyey 3 lagu jibaaray 3 laakiin 3 lagu jibaaray 3 waxaynu 3 haddaad 3 ku jibaarto waa 27 dabeedna 27 loo qaybiyey hal aynu ku bedelanaa intaynu ka dhigi lahayn hal loo qaybiyey 3 lagu jibaaray 3 ayaa waxaynu ku bedelanaa hal loo qaybiyey 27 hal weeyaan halkaasi. waayo haddaba intan waxay noola mid tahay 3 lagu jibaaray minus 6 waxaan isku dhufanaa 2 iyo 3 ku jira minus 3 ku jira qowska plus 5 shantan waanu geynaynaa dabeedna intani waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey 3 cubic root of hal loo qaybiyey 27 waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey 3 intan aynu ka shaqeynaa haddaba waa 3 lagu jibaaray horta 5 iyo haddii aad labada isku geyso waxa soo baxaya minus hal waayo way kala go-ayaan oo minus 6 plus 5 waxay noola mid tahay minus hal inta rogaalkeeduna waxa weeyaan hal loo qaybiyey 3 waa intan waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey 3 dabeedna hal loo qaybiyey 3 waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey 3. waayo tusaalaha xiga waxa weeyaan hal loo qaybiyey 4 oo lagu jibaaray waayo inagoo ku horeyna qaybta bidixda hal loo qaybiyey 4 waxaynu soo qaadanaa hal loo qaybiyey 4 rogaalka hal loo qaybiyey 4 marka jibaar laga dhigayo waxa weeyaan 4 lagu jibaaray minus hal dabeedna qaabkaasaynu dhiganaa jibaarka waxaynu odhanaa waa 4 lagu jibaaray minus hal lagu sii jibaaray x ayaa waxay noola mid tahay 16 dabeedna minus hal iyo x baa isku dhufanayna waa 4 lagu jibaaray minus hal iyo x haddii isku dhufato minus x weeyaan oo inoola mida 16. waayo haddaba tan aynu fudaydino oo aynu ka dhigno 2 to the power of 2 oo lagu sii jibaaray minus x qaybtana aynu jibaar ka dhigno aynu nahno 2 lagu jibaaray 4 waayo dabeedna waxaynu isku dhufanaa 2gan ku jibaaran inta gudaha ku jirta iyo x dibadda taala waa 2 lagu jibaaray minus 2x ayaa waxay noola mid tahay 2 lagu jibaaray 4 marka hooseyaasha waa iskaga teganaa maadaama ay isku mid yihiin waxaan odhanaa minus 2x waxay noola mid tahay 4 waayo minus 2x waxay noola mid tahay 4 dhinac kasta marka waxaynu qaybinaynaa minus 2 xaggana minus 2 marka x waxay noola mid tahay minus 2 qiimaha haddaba aynu ku bedelo halkay noo taalo x waxay noqonaysaa hal loo qaybiyey 4 oo lagu jibaaray minus 2 ayaa waxay noola mid tahay 16
waayo intan sida caadiga markaynu rogaalkeeda ku xirino oo ah 4 lagu jibaaray minus 1 waa 4 lagu jibaaray minus 1 aan gudaha ku qoro 4 lagu jibaaray minus 1 ayaa waxayna oo lagu sii jibaaray minus 2 ayaa waxay noola mid tahay 16 dabeedna waxaa isku dhufanaysaa minus 1kan iyo minus 2ga waxay noqonaysaa plus barta labada calaamadood markay isku dhacaan plus bay noqonaysaa dabeedna 2 bay halkaas inoo noqonaysaa 16 marka 4 haddaad ku jibaarto 16 weeyaan waayo micnaheedu waxay 4 lagu dhuftay 4 marka 16 wuxuu noola mid yahay 16 qiimahaasina saas